بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warbixin aan ku eegi doono qaabkii maanta ololaha nadaafadeed looga fuliyay magaalada Hargeysa haddaba dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maanta magaalada ka fulisay ololaha nadaafadeed oo bilo ah kaasi oo bishii la soo dhaafay ku dhawaaqay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ololahan oo u qorshaysan in bil kasta khamiista u dambaysa ololaha nadaafadeed oo bilicda magaalada kor loogu qaadayo la fuliyo ayaa waxa maanta degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa ay ku qaadeen ololahaasi goobo mucayyim ah oo markaasi loogu talagalay in ay ka fuliyaan ololahaasi goobahaas iyagu ay qorshaysteen ololahan ayaa waxa hogaaminayay maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa iyo xubno kamid ah saraakiisha sarsare ee dawladda hoose waxaana meelaha laga fuliyay kamid ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa oo markii afraad gacanta la saaray qashinka halkaasi laga nadiifinayo geesta kale waaxda gacan libaax oo kamid ah sideedda waaxood ee caasimadda Hargeysa ayaa waxa ay ololaha nadaafadeed ku qaaday dooxa waraabiya dhaamka weyn ee daami halkaasi oo ay xidheen qashin iyo weliba geedka garanwaaga oo ololahan ayaa waxa lagu nadiifinayay ama halkaasi lagaga xaaqayay geedka loo yaqaano garanwaaga iyadoo oo ay hogaaminayeen saraakiil ka tirsan waaxda gacan libaax ee magaalada Hargeysa waxa iyaguna qayb ka ahaa odayaashii waxgaradka degmadaasi kuwaasi oo ka saacidayay howlwadeennada dawladda hoose fulinta barnaamijkan ololaha nadaafadeeda haddaba qaar ka mid ah saraakiisha waaxda gacan libaax ayaa warbaahinta la hadlay waxaanay ka warrameen barnaynta halkani iyaga oo sheegay in markaasi barnayntan ay qayb ka tahay dhismaha buundo dooxaasi ka tallaabi jirtay oo isku xuli jirtay xaafadda Sheekh Nuur iyo weliba suuqa oo iyaduna meeshaba ka baxday waa kan sarkaalka u qaabilsan waaxda gacan libaax dhinaca engineerinka oo isagu ka faahfaahin ka bixinaya ololahan ay maanta qaadeen iyo weliba qorshayaasha ku aadan dhismaha buundadaasi bismillahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhammaan madaxda Soomaaliland maanta waxaanu joognaa dooxii kilarka kaasoo ay ololaha ka bilowday anigoo ka socda degmada gacan libaax ahaan magacaaban district engineerkii sidii ay ahayd inoo astaysnayd bil walba dhammaadka maalin khamiisa waxaa jira ololihii weynaa uu maayirku iclaamiyey iyo golaha deegaankuba tanna waxay ka mid tahay shaqooyinkii loo ballansanaa uun maanta waxaanu isku daynay inaanu banayno garanwaagan qariyey dooxii oo sababay amni darro sidoo kalena cidhiidhiyey inay biyuhu keenaan inta badan pressure badan ama xoog maan badan taasoo mararka qaar keento in la tallaabi waayo waxaan kaloo ku shaareynayaa dadka xaafadda degan oo iyaguna guddidooda iyo dhammaan community-guba ay iska abaabulan yihiin isna ay diyaariyeen contributions lagu dhisi lahaa bridge-ka taasaa keentay markaa inaanu samayno in bannayn la sameeyo xadkii uu marayay dooxa marka waxa laga yaabaa dad aan badnayn inay saameynayaan oo ay dooxu saameynayo iyagana waa la maarayn doonaa wixii dawladdu ay tari karto golahu tari karo ayaa la tarayaa dooxana inta badan halkan waxa ku jira bogosyo badan oo taariikh weyn leh qaarkood waxa laga sheegi jiray la hoos mari jiray waxaan buuxinaya wax kale maaha waxa weeyaan dooxo la cidhiidhiyay iyo dhaamkii aan la dhooba qaadin marka imika waxa la design gareynayaa oo la isku dayaa la sameeyo Irish bridge hadii la sameeyay kari waayay oo faadka ah ee bridge-ki weynaa oo kharashka oo aad u badan oo qiimayntiisa aad u sarreyso marka noo gudbida kaashanayna farsamahaan eegayna waxaan imika ku guda jirnaa bal sidii xaafadan goodoonka ah xilliyada roobka aan awoodi karaynin inay soo talawdo iyadana loo doono oo la maareeyo biyaha sidoo kalena dadkan beeraha iyo samaystay xadkii dooxa ku soo gudbayna iyagana la nidaamiyo wixii beeraha haysta beerahooda iyo waxoodii la yiraahdo meeshan waa dooxe iska nidaamiya sidaana lagu gaaro dooxi taasay tanna ku timi marka waan salaamayaa dhammaan shacabka sida fiican u shaqeeyay iyo dhammaan community-ga xaafadan ku nool saytalag bay qaadanaysaa marka hawshan birish kala sheegtay sidoo ognahay waa godoon marka roobku doo halkaas biyo fadhiistaan oo dadku tallaabista adkaa midda kale iminka biyuhu say socdaan halkan maxaa u banay weydeene toos lagu sameey waayay in biyuhu socdaan karaan waa su'aal aad u fiican horta goluhu cusub yahay maamulkuna iminku qorshayaashiisii uu ku shaqeynayay sanadada iyo 6 biloodada iyo 5 sano soo socda kala dejinaya walaalaha ka shaqeynayay hawshan muddo soo jitantay oo ay hawshan doonayeen in la galo
laakiin haddana may suurtagelin iminka hadda waxaanu bilaabaynaa fayskii cusbaa ee sidii hawshan u gelaysay halkan oo keliyana kuma koobnee dooxu halku ka soo bilaabmo ilaa halka dooxa laga gaadhayo waxaan qorshaynay in garawaaga laga sameeyo isagana inta dhinac la isugu ururiyo la gubo dhinaca kale qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaanay ka warrameen dadaalka ay la garab taagan yihiin dowladda hoose gaar ahaanna waaxdan gacan libaax ee ay markaasi kaga qayb qaadanayaan ololaha nadaafadeed ee biladha waaxdani kor loogu qaadayo halkan ilaa biriishkii ay marayeen basasku waa kuwan waxay noqotay ballaygii daameba inta isu bedeshay aaggaa waa laga xidho dadkii beere iyo balaayirjiniyo waxbaa xidhay wuu arkay wuuna qaatay waxaan go'aansanay inaanu bannayno 10 cishuun iyo maxay hebayeen cagaftu ka bixi mayso maayir ku-xigeenku ilaahay ha ka tusaysiiyo dadkana biyo iyo waxa dawaqiyey iyo dhirta iyo kayntaasoo habeenkiina maxay heday aanay dadku ka tallaabi karin amni darro awgeed oo lagu baaranayo marka alxamdulillahi rabbil caalamiin tiiwaanta waa taasoo way hirgashay cagafyadu way ku jiraan si wanaagsan baa u socdaa saakin waxay ahayd maalintii ololaha nadaafadda ee magaalada waaxdan gacan libaax tusaalahaan xaafadan aynu joogno kale ololaha maalkan bay ku qaaday ololaha haa halkan ay ugu qaaday dooxanoo halbowlihii u ah oo xaafadan Sheekh Nuur iyo maxay hedayn in wadada ka timaada idaacadda tii suuq hoose iimaysay dooxan kulmiya oo isagu xidhnaa ayaa ololihiisu bartilmaameed aad u weyn u ahaa oo aan ka dhicin ololihii dooxa weyn ka dhacay Hargeysa mid la mid ah aanu maxay heday uu ka socdo مسافين تلاقي بمركا ضوحي مكا اللي يحكي بالك دامي waxa inaga xigtaa in 1 kilomitir waxaan ka yaray bay inaga xigay waa gartay dhulkuna waa xiriyahay waa shaqo waa arkay marka xagga hore oo kale hal qof dooxii dhamaa in isdaba gashaan qofkii mooyaane balad uma socon kartaa intan baabu ka sii yar bidhiiqisay maka intiina waa taas maanta wuxuu garwaaqsaday maayir ku-xigeenku inuu banneeyo oo wax aan maxay heday maanta ilaa muddo 10 cisho halka laga arko ballaygii daami oo maxay heedayna si kastaba ha ahaatee ololahani waxa qayb ka ah oo barbar taagan qaybaha kala duwan ee bulshada oo markaasi xoog iyo xoolaba ku taageeraya iyada oo ay shirkado kamid ah kuwa wadaniga ah ee markaasi magaalada ka ganacsada ay dowladda hoose ku wareejiyeen agab iyo weliba waxyaabo kala duwan oo markaasi lagaba marmaan u ah fulinta ololahani